wuxuu ku socdaa hooyo walboy adigu dhal ama ha dhal gabar dayacan markaa aragtay gacanta qaba inta awoodid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan saxaabta walaalaha faamiliga qurxinta iyo arrimaha qoyska soo dhawaada aad idin salaamayaa. Inta aan meeshan ku midowno dhanba waxaan leeyahay caafimaad iyo qayna idin rajaynayaa. Inta igu soo biiri doontana waxaan leeyahay welcome, soo dhawaada, waxbaan kala faa'iideynaa. Waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo aniga mar kasta oo aan arko wax yar oo daqmasha aad baan ugu xanuunsadaa. Markaan xitaa social media ku jirin aad baan ugu xanuunsan jiray. Waxyaalaha isoo geliyayna ka mid tahay social media. Waxaan arkay wiil gabar intuu daraaga siiyay garabka soo saaranaya. Kala TikTok tu waqti dheer ku jiray wax daawadu waaye. Wuxuu u fakiray hadduu gabadha soo dhigo in la daawana waana la daawada. Heerka la gaarsiiyay maanta iyo shalay meeshu jooga isma laha. Shalu soo dhiga habeen hore aan malaynaa inaan arkay. Waxaan nahay bulsho qarka sii dhacaysa. Waayo aalada casriga way nagu cusub tahay qarban ka sii dhacayna. Dad sii dumayaana. Dad nool ma ihin. Marka gabadhaas wiilkaasi hadduu og yahay sharci qabanaya wadanka inuu ka jiro gabadha waxa kuma sameeyeen. Hadduu og yahay inuu ceeboobayo bulshada ka takoormayana gabadha kuma sameeyeen. Maxaa baawar siiyay inuuna sharci qabanayaana jirin bulshadana uu ceeboobina gabadhu ceeboobayso. Annaga bulsho waxaan nahay wixii xunba xawaale wixii xunba gabar baale. Bulsho waxaan ilaahay naga dhaliyay wixii xunba gabar baale. Marka horta bal ila daawada wiilkaas wuxuu samaynayo bal ila daawada. Ma raba inaan ku dheeraado ama wax weyn ka aragtiin waayo waa qalbi xanuun. Aniga laftigayga xitaa inaan sii daawado ma jecli. Waxa lagu samaynayo waa gabadhaydii, waa gabadhi walaashay, waa gabadhii anigu aan dhalay iyo gabadhii walaashay dhashay. Maxaan kala nahay? Waa gabar iyo habriirteedii, gabar iyo hooyadeedii, gabar iyo eedadeed. Gabdhaheeni maqaadaraad baa lagu baabi'iyay. Da'yarteeni maqaadaraad ayaa lagu baabi'iyay. Dilayna meel fagna na geeyay. Gabadhaasi horta caawa ayadaa la ceebaynaya. Xitaa waxa ku jirta maray leedahay wajiga ma dhaqna, wajigu ima dhaqne iga sii jeedi kaamirada aan wajiga soo dhaqday maray leedahay ayaa ku jirta oo madha markaas hurdo ay ka soo kaceen. Markaana waaba dhas waa ka dhacsantaa markaan wax jira iyo wax jooga iyo wax socdo midna maba ogaba oo dambe uu ka duubayo. Marka hooyooyinow wallaahi hooyooyinow waa dhimanay aan meesha ka istaagno haddayse hooyo lahayn xitaa gabdhaha tan hooyada lahayn iyo tan hooyada leh meel kastoo gabar dayacan ku aragtay garabka qabo. Gabdhaheeni waa dhinteen. Gabadhaada xitaa hadday ay balwad leedahay iska cayrin. Ilaahay baa ku siiyay balwadda, ilaahay baa ka qaadi kara, ilaahay baa ka wadi kara. Sidaa u deeteyn karta u deetee dad waxaa jira cayriya markaaro. Marka walaalahayow waxaan leeyahay qof kastoo codkayga maqli doonow waan sii dumaynaaye geeskaaga ka qabo. Wiilka noocaasoo kala wiilka noocaasoo kala hadhowdi hooyo gurigeeda jooga gabar buu hadeer gurigeeda ka soo kacay hadduu rabo guursana mustaqbal buu leeyahay, walaal buu leeyahay, eeduu leeyahay, habaryar buu leeyahay. Wax ku ceebinaya ma jirto inuu gabadhaas waxaas ku sameeyo. Qof ku ceebinaya ma jirto. Waana ayaan daradan ugu dhacday, waana dhibaatooyinkana soo wajahay oo hadda aan la daalaa dhacayno. War adduunka cid aan la mid nahay ma jirto. Adduunka Afrikaana waa arkay nolosheena wax nala mid maba jiraanba. Marka bal xanuunkaas ayaan maanta inaan fiidiyogan duuba ii keenay. Message-kaygu wuxuu ku socdaa hooyo walboy adigu dhal ama ha dhal
gabar dayacan markaa aragtay gacanta qaba intaa awoodid waxaad awoodin qofna qaba kuma laha intaa awoodid wax sheeg hadday rabtaa kaa qaata hadday rabtayaysa kaa qaadan mid baa kaa qaadanaysa mid hadday kaa diida wax sheeg gacan qabasho in allaale intaa awoodid gabar dayacan markaa aragtid u istaag masajkaygu waa saas hooyo walba oo anigu aan ka mid ahay aan u istaagno gabdhaheena yaryarka ee mid lacag lagu duleeyo iyo mid daraagis lagu duleeyo aan ay wada noqdeen aan u istaagno dhammaantiina waa in salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu